boqol qoys oo ka soo jeeda qoysaska danyarta ayaa ka faa'iideystay deeq raashin ah oo ay jamciyadu iyo door al-khayriya ugu qaybisay duleedka magaalada Muqdisho qoysaskaasi. madaxa hay'adda jamciyadu iyo door al-khayriya Raaniya Maxamed Cali ayaa ka warbixisay deeqda raashinka oo ay jamciyadu iyo door al-khayriya gaarsiisay dadka danyarta ah ee ku nool duleedka magaalada Muqdisho. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ilaah baa mahad iska leh oo nagu wada kulmiyay halkan. waxaan deeq anfurin soo gaarsiinay masaakiinta aad u jeedin kadib waxa mahad celin iska leh Abu Khalid oo anfurintan soo dhiibtay khayr badan Allah iska siiyo ilaahayna ka jiseeyo anfurinta oo dadkan u soo dhiibay. mid ka mid ah qoysaska ka faa'iideystay deeqda raashinka oo ay u qaybisay hay'adda jamciyadu iyo door al-khayriya ayaa ka mahad celiyay. maanta oo soon soo dhow yahay ilaahay mahadiis waaye ilaahay khayr waana sii maanta ay noo bilaabato oo soonka soo dhow yahay sabda asnoo yahay nin curyaana igu xariira maanta xalakaarna la siiyay sidii ninkii ku soo waday maanta ilaahay wuxuu noo sahlay wax aan soonka aan ku bilaabano bariis iyo bur iyo sokor iyo timir iyo caano boore iyo cabitaan Abu Khalid waa mahadsan yahay khayr Allah asiiyo umr dheerna Allah asiiyo. Abdulaziz Ibrahim Ahmed Oke TV Universal magaalada Muqdisho.